xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeele ayaa mooshin ka keenay madaxweynaha maamulkaasi mudane Maxamed Cabdi Waare sida wararku ay sheegayaan xildhibaano gaaraya 57 xildhibaan ayaa ka soo gudbiyay mooshin xilka looga qaadayo madaxweyne Waare waxaa mooshinkaasi aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeele madaxweyne Waare waxa uu haatan wajahayaa caqabad kaga timid maamulkiisa xilli uu dhawaan heshiis la gaaray dowladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo ku aadan inuu ka baxay heshiiskii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo oo ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka Soomaaliya